waa socdaal aanu ka soo bilownay magaalada caasimadda ah ee Nairobi isla markaana aanu ku tagnay caasimadda dalka Uganda ee Kampala waa bahda 5TV oo waraysi la yeelatay rugcadaaga saxaafadeed ee magangelyada ku jooga dalka Uganda marka hore waan salaamayaa shaqaalaha iyo maamulka telefishinka 5TV qaasatan waxaan salaamayaa saaxiibkay Fuad oo aan soo shaqeynay waa dhawahay aad baan u mahadsantahay adiga mudan in badan soo dhaweyntaada iyo sida aad waraysigan inooga aqbashay intaba waan kaaga mahadcelinaynaa inta kadib bal dadweynaha ina daawanaya iyo anigaba taariikh nololeedkaaga oo kooban hadii aad inoo dulmarto waad mahadsantahay aniga kula magacayga waa garanay waa Axmed Cumar Xaashi Axmed Taajir waxaan dhashay 1966 waxaan ku dhashay magaalada Burco halkaasaan ku soo bartay waxbarashada dugsiga hoose dhexe ilaa secondary school kadib waxaan ka baxay oo dhigtay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Somali National University waxaan ka howlgalay oo aan ka shaqeeyay oo idaacaddii ugu horeysay aan ka howlgalay idaacaddii la oran jiray STN oo aan muddo ka shaqeynayay kadib iyadana waxaan muddo ka shaqeynayay idaacaddii Cabdiqaasim waxaan kadibna u soo wareegay idaacadda Shabeelle oo aan in badan ku soo qaatay shaqadayda waxa si cad u muuqatay in wariyayaashu markaas ay ahaayeen kuwa meel ay u ciirsadaan waayay marka ay timaado weerarada kala duwan ee uga imaanaya xagga dawladda iyo dhinacyada dawladda mucaaradka ku ah Axmed Taajir waxa uu haatan ka sheekeynayaa weerar uu sheegay in dawladda xilligaasi ka arriminaysay Soomaaliya ay ku soo qaaday guud ahaan shaqaalihii idaacadda uu ka howlgali jiray xilli ay ku shirayeen ama xilli ay yeelanayeen kulankooda maalinlaha ah wallahi horta waa maasantay foosay shaqada suxufigu waa shaqo adag shaqada saxaafadda ma shaqo sahlan waa shaqo wardoon hadal waxaad raadinaysaa qof afkii ama calooshii ku qarsoon helidiisuna ma sahlan haddaad hadashidna kulli cadow baad yeelanaysaa kasoo qaad matalan haddaad maanta news fiican dawladda ka sheegtay war fiican waa saaxiibada ku soo dhaweynaya ku dhool cadeynaya war khaldan oo ay si wax u laalaabeen haddaad sheegtidna dayaga cadowgaaga ah marka ma sahlaneen runtii waxyaabo badan waa soo marnay waxyaabo badan waa soo aragnay waxaan xasuustaa xilligii dawladdii Abdullahi Yusuf maalmaha kamid waxaan xasuustaa dhowr jeer digniina wayna siiyeen dhowr jeer idaacadda way noogu soo galeen laakiin maalin aan u malaynayo ma garanayo la harta laakiin waxaan ma inta jiray idaacadda Shabeelle shaqaaladeeyaan cidna laga reebin hala xiro yaanba cidla xiriir ku roona hala laayaan mid ka harin waa tahay ciidamada waxay noo soo istaageen idaacadda kaabigeeda waxay ahayd adigu qiyaastii idaacadda warka marka ka baxno subaxii warku soo gala 2 saac ama 8 daaroodnimo sida dadka qaar ay yaqaanaan markii warka aanu ka baxno waxaan galnaa kulan la yiraahdo editorial meeting oo marka la isku soxo kulankaas marka waxa weeyaan waxa laga hadlaa idaacadda newska idaacadda barnaamijyadii 24 saac la soo dhaafay maxaan ku saxnayn maxaan ku khaldanayn maxaana dhaafay iyo maanta maxaa shaqa oo noo yaala oo ay tahay inaan soo xalin markii aanu shirka galnay oo shaqaalaha aan qof ka maqnayn ayaa waxaan ku daaqada iyo balakoonka ku aadanaa qolka aan ku shirayn wax alla waxay xabadahayeen bay ku soo fureen qoriyarba kii sheeg darandooriga u dhacaya marka noocan dhashiikaha la yiraahdo haduu waxba noomay reeban shaqaale wala wada dhulka la seexday laakiin hal qofna laga dhaawacmin waxaan isku daynay inaan la xiriirno madaxda dawladda wasiirkan wac sarkaalkan wac waxaan ku raaa madaxan wac kan nabadgelyada wac mid boolis wac kulli telefoonada wala dasay marka maanta waxaan aragnay inay ahayd maalin qorshe inuu ahaa mishinkaasi inuu ahaa mishin oo la isla ogaa oo la yiri bal marka horta wixii ka dhiman karaa ka dhintaan kadib marka marxabadu laga istaagan oo ciidamadii xabadaan lagu furayna ay siraadeen ragii waa galbadeen badankoodii kadib waa telefoonada la shido maxaa dhacay say wax jira yaadin weerar anaga hadda ka wayn adaga laakiin taasna waa soo marnay markaas maxaa saameyn idin soo gaaray dhanka shaqaalaha wallahi waxba ma gaarin laakiin hal qof waxba ilaahay naga gama kulli say iyagu tala galeen sida ilaahay ka dhigay iyo qorshoodu waxa inaan mid naga harin laakiin sida
ilaahay inaan ka badbaadno ilaahay qorsheey taasaa qorshaysnayd laakiin sarta qaybta ay xabadaha ku soo ridayeen dib baa loo dayactiray way daldalooshay gabigeedu si xun bay u baabi'iyeen markaan taa ka soo tago shaqada suxufigu ma aha shaqo sahlan waa shaqo adag waana shaqo riskigeeda waa ninku taagan aduu midi laba af leh qarkaga taagan weerarkaasi kadib wariye Axmed Cumar Xaashi Axmed Taajir waxaa lagu dhaawacay weerar lagu qaaday isaga iyo Allaha u naxariistee Muqtaar Maxamed Hiraabe xilli ay ku sugnaayeen suuqa weyn ee Bakaaraha ee ku yaala magaalada Muqdisho waa kan sida uu weerarkaasi u dhacay isaga oo ka sheekaynaya Allah u naxariisto Muqtaar Maxamed Hiraabe walaal qaali oo naga baxay waxa nin zaciimana oo runtii oo iska afgaaban garan ma anigu kulli sababta loo dilay kulli sababta u taargargareeyeen wuxuu shaqaynayay telefishin isna la yiraahdo RTD oo Djibouti fadhigiisu yahay maalinta aan baxayno waxay ahayd 6 bishii waxay ahayd June 2009 marka dhowr jeer oo maalinta ka horeysay Hiraabe wuxuu yiri dhowr jeer wuxuu rabay inaan israacno oo hawlo aan ka soo qabanno Bakaaraha hawlo aan ka lahayn qaybta daawada iyo qayb kale oo iyo meel xarun kale oo aan tagnay oo ay lahaayeen qoladan shirkadda Isbuunyada Shaakir ay lahaayeen adigu dhowr maalmood qiyaastii waxaan qiyaasi karaa ilaa 3-4 maalmood inuu ilaa aan tagno oo subax walba aan lahaa hawlo kale iyeel way waxaan ahaa idaacad Shabeelle shaqooyinka kale caadiga marka laga soo tago waxaan ahaa madaxa suuqgeynta marka ilaa 4-5 maalmood baan ka baajiyay oo maanta shaqadaasan leeyahay tan iyo taala subaxa marka iyada intaan idaacadda warkeeda gelin wuxuu yiri maanta ku talagal waxaan tageynaa Bakaaraha waayaan warkaan iska galay uu isugay waan ka soo baxnay marka warkaan dhameeyay waan soo raacnay marka waxaan u soconay suuqa daawada laakiin waxaan ku hormarnay Bakaar ay lahaayeen qoladan la yiraahdo qolada Isbuunyada Shaakir Bakaarkan galnay qolada saaxooga business iyo waxba naga dhaxeeyay oo la hadlay ka soo baxnay waan xasuustaa meesha irdeeda waxaan ka cabnay shaah 2 koob shaah aan dalbanay mabaana dhamaysan hafaaf markaan soo dhaqaaqnay sarta leeyahay maalin taajir horteeda ayaa waxa lagu gada qaad jaad baa lagu gada manaaga waxa fariista ku jaad gada markaan la jiiroonay waxaan u soconaa dhinaca suuqa daawada jiirada markaan galay marka xabadaha maqlaano 2 xabadood baan maqlay dib baan eegay marka eegista waxa uu kalifay laftigeega xabadu dhinacayga ka dhacday marka waxaan moodayay dhagax ciyaalka yar kuwa garaawada igu soo tuureen waxaan soo raadin ibal eeg oo xunug yar dhagax ku dhufay saastaan u sii jeestay waxaan arkay Hiraabe sii dhacay hadaan eegay nin baa badul taaganba 10 talaabaan booday waa soo jeestay marka xasay bal hubi xabad labaad marka toos ugu rido wax ka dhufta madaxa xabadu marka ay madaxa kaga dhacday laamiga gashay marka awoodda ilaamiga ku galeysay in madaxa tuurto madaxayna tuurtaa u filan madaxa soo tuurtay hadana mar labaad buu noqday mar labaad markaan igu soo reetay saddexaad tintay dhaxmartay waana cararay marka ilaa waa arkay marka ay sheekada xumaatay waana cararay Bakaar baan dabcaynan galo waa la iga soo xidhay mid kale aan isku dayay waa la iga soo xidhay mid saddexaad baan isku dayay waa la iga xidhay marka intaan ordayay waxaan arkay tii igu la yaab badneed nin wado meel gidaar taagan waxaan arkay intuu sii jeestay wajiga gidaarka xajiyay indhahana qabsaday marka waxaan u arkay ninkaasi inuu ka dhuumanayo islaha wax ka baqay nimankaas inay raadaan markaan nimanka dilaynay wadna arkaysay adigu calay xalwaan cararay way cayrsadeen xabado kale igu rideen waxaan isla dhaxmarnay xataa sarfiiraha dollarka xabadaas waxay ka dhacday gacanta bidix dhinacaas ay ka soo dhacday feeraha dushooda ku dhacday halka waxay ka baxday caloosha korkeeda laakiin ilaahay waxba iguma yeelin xabada iska waxay xabada cad igu soo rideen sarfiiraha isla marnay Telecom Soomaaliya markaan gala marka miiri ugu dambeysay marka shirkadda Telecom Soomaaliya iyaga soo qaaday staafkoodana u soo daray sidaas marka la igu geeyay isbitaalka Liida Madiina xilligii markaas weerarkaas la idinku soo qaadayay waxa cadeyd in wariyaal badan la bartilmaameedsanayay wax cabsi ama shakiya ma idinku jireen markaad israacayseen walaal cabsi iguma jirin si hadii loo eegana
dareen waa jiray oo kolley dareen la-aan ma ahayn oo waxaa ka horreysay dhacdadii Siciid Tahliil oo 4 February isla sanadkaas. Axmed Taajir sida uu sheegay dad badani waxay ku wareersan yihiin sida uu ku dhacay dilkii loo geystay Allaha u naxariistay wariye Siciid Tahliil Axmed iyadoo qofba sida ay la tahay uu u qaadanayay mar kale ayuu ka sheekaynayaa sababta loo dilay Allaha u naxariistay Siciid Tahliil. dhacdadaas horta dadku intooda badan ma dareensana siday ku timid laakiin haddii aan ku dulmaro qaabka ay ku dhalatay waxay ahayd waxaa jiray shir aan ku yeelanay idaacadda Shabeelle. shirkaas waxaan kaga hadlaynay in aan idaacadaha u gudbino in la joojiyo shir jaraa'id oo hawada oo dambe inaan la qaban markii ay bixeen ciidamada Itoobiya. intii xilligii ciidamada Itoobiya joogay waxaa jiray waxa la qaban jiray wax la shir jaraa'id oo hawada in mas'uul raba inuu hadlo dabcan de amaankuna iska liitay marka shir jaraa'id oo hawada oo xagga telefoonka la qaban jiray markii ciidamada Itoobiya bixeen waxaan go'aansanay shir jaraa'id oo hawada dambe inaan la qaban. marka shirkaas waxa asalkiisa ama aan ka asaasnay oo ka bilaabmay idaacadda Shabeelle. marka raggii kulankaas ka qayb qaatay waxaan ka xusi karaa Allah u naxariisto Mukhtaar Maxamed Hiraabe, Siciid Tahliil Axmed, Xasan Xuseen oo hadda aan filayo inuu joogo Turkiga. waxaa kaloo joogay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cadaala, ninka la yiraahdo Atoosh oo ahaa markaas akaasimiga idaacadda Simba. marka kulankaas intayadaas aan ahayn aan ilaahdo waxaan ilaabay oo isna la joogay maxaa ugu karmaada oo hadda u shaqeeya Somali National TV intiha. marka waxaan iskula soo qaadnay oo aan ku go'aansanay oo aan iskula lafagurnay in idaacadaha iyo asxaabtayda aan u gudbino inaan joojino wax la yiraahdo shir jaraa'id oo dambe hawada inaan la qaban. waan xasuustaa raggii kulanka markaas xogaa ka yara kama biyadiidin laakiin xogaa cabsi ka muujiyay waxa kamid ah Allah u naxariisto Mukhtaar laftigiisa kamid ah iyo Atoosh laftigiisa oo ay yiraahdeen warnimayow baashu waa dil bay keenaysaa ma naga daysaa ya marka raggii ku adkaysta waxa kamid ah Allah u naxariisto Siciid aniga iyo Cadaala isna yiraahdeen meesha doonta waa gashay ya balkan hal hawlgaliyo shirkan idaacadihii u sheegnay waa u gudbinay waa nala qaateen. go'aan ayaa laga soo saaray midaysan maalintii marka la go'aamiyay inaan wax kulan damba oo shir jaraa'id oo hawada aanu jiri doonin shir jaraa'id oo dambe hawada aanu jiri doonin markii la go'aansaday oo idaacaduhu maalintii go'aamiyeen kadib waxaa kulankii ku soo dhacay kulankaasi oo dabinkaas waxaa ku soo dhacay Allah u naxariistay wasiirkii arrimaha gudaha oo xilligaas waxay xilligii Cabdullaahi Yuusuf ninka la yiraahdo Allah u naxariisto Umar Xaashi idaacadda soo wacay oo yiri waxaan rabaa shir jaraa'id hawada aan qabto. markaas idaacaddu u sheegtay in maartay aan qaban karin oo la joojiyay kulanka kii ku xigana waxa ku soo dhacay nimanka yararo faraha fudud hadda dadka laaya wayiguna waxaan qabanaynaa shir jaraa'id ayaan qaban doonaa. iyagana waa loo sheegay waxa la yiri shir jaraa'id oo dambe hawada ma jiro. waa ka diidnay waa u cuntami weysay way qaadan waayeen. lawr jeer bay telefoon noo soo direen xalay maxaa dhacay anaga saan way kan dabalushana waxa nimayo ciidamada Itoobiya waa baxeen hadda cid labo laga baqa ama laga carraana ma jirtay. hadda shir qabtaan oo leedihiin idaacadaha taga idaacad kasta baabuur walayn gaar u dirsada qof u diray wariyaha ku dara walaal ka soo duubo laakiin wax dambu hawada waa joojin. marka barnaamijkaas halkaas ka yimid waa barnaamijka ku dhintay ninka la yiraahdo Siciid Tahliil lagu dilay halkaas ka dhashay barnaamijkaas. waxa kaloo jiray masaajidka la yiraahdo Abu Hurayra hadda ka hor nin ayaa wuxuu ka cilaamiyay waa Abu Hurayra Muqdisho
waxaan u malaynayaa magaciisii inuu ahaa fuaad shangulaha iyo masaajidka Abu Hurayra wuxuu ka sheegay in dilka wariyaashu ay bannaan tahay dhammaantoodna ay u shaqeeyaan reer galbeedka lana diri karo lana tahdiidi karo naftoodana la jari karo marka taasi waa tacadiga wariyaasha tan Siciid Haalinad kolley waxay salka ku haysay kulankaas aan kaaga soo sheekeeyay ahaa kulankii ay idaacadu ku qaateen in la joojiyo shir jaraa'id oo dambe hawada waa tahay markii lagu dhawaaqay marka in wariyaasha dhigooda uu banaan yahay oo la dili karo xaaladiinii iyo qaabkad u shaqeynayseen iyo amnigiinii maxaa iska bedelay wallahi horta waxba iskama bedelin anagu dhan kastaba cadow ku lahayn maaha kaliya nimanka yaryar in laayaan dowladda lafteeda dadka waa leynaysay inkastoo aan waxba sheeganayn waxba iyaga laftooda saxaan cidna uma samaynin cidna ma daynin cidna ma dhowrayn laakiin waa ogeyn anagu maartay mar walbaba inaan ahayn dhari dab saaran laakiin waxaan go'aansanay inaan shaqeyno kadib weerarkii saddexaad ee lagu qaaday Axmed Taajir isagoo uu ku jira isbitaalka Madiina go'aan sidee ah ayuu ka gaaray shaqadii saxaafadda iyo inuu ka shaqeeyo gudaha caasimadda Muqdisho ka soo qaad aniga matala markii la dhaawac waraysigii ugu horeeyay bixiyay waxaan siiyay Al Jazeera iyo Al Arabiya waxaan u sheegay haddii aan raysto inaan shaqada ku laaban doono laakiin leeyma suginba isbitaalka intaan joogay laba jeer soo weeraray laba jeer ay soo weerareen marna habeen bay ahayd oo qolkii ugu dhagan baa laga soo xabaday marna maalin cadeey bay ahayd oo qolka aan ku jira daaqadii saxaabada oo dal looga qaaday kadib markaas aan go'aan ku gaarin dalka isaga soo tago marka taaba yaanan ku sii fogaan laakiin anagu waan ogeyn in dhibaatada jirto in wariyaashu ay dhari dab saaran yihiin waan ogeyn laakiin waa ku qasban inaan shaqeyn shaqadana sidaan ku sii wadin waan la socota adigu maalinba in suxufu tareen kaaray habtuna waa sidii u socotay la hadda saxaafadda hadda waxa weeye si toos ah kuma jiro si dadban waa u soo galaa laakiin si toos shaqada uma hayo aan ku noqdo xamarna markii aan ka soo tagay waxa iga soo qaaday oo anu mahad celinayaa hay'addan la Eastern Horn of Africa Human Rights Defenders Project oo agaasimo ka yahay Dr. Xasan Shire Sheekh runtii iyaga xamar iga soo qaaday iyaga dad ii soo diray iyaga Kampala ay keenay iyagana xaaladii caafimaad la socday ilaa iyo intii aan ka fiicnaanay taas waa taas laakiin tan shaqada saxaafadda iyo anade runtii hadda rabtay hawshii saxaafadda gashid waa inaad qaato shati leesan inaad qaatid wasaaradda arrimaha gudaha kadib aad markaa hawshii dib u geli kartaa laakiin mabaan gelin waxa weeye hawshii umaan badnayn kumaan sii dhex jirin kolley kama marni oo waa dul jooga laakiin si rasmi ah shaqadii saxaafadda umaan qaban waxaan ka mid ahaa qaxootiga ku nool Kampala markii taa laga soo tago xilliyadii aad idaacadaha ka shaqeyn jirtay sidoo kale waxaa lagu xusuustaa in aad uga soo dhex muuqan jirtay riwaayadihii idaacadaha laga dhageysan jiray codadkii aad ku matali jirtay dabcan way kala duwanaayeen maxaad iyagana inaad u xusuusin kartaa wallahi idaacadda Shabeelle horta shaqooyinkayga way badnaayeen horta mid waxaa banaan newscaster waan aroortii warka aroorteena idaacadda soo deyn jiray madaxa barnaamijyadana aan ahaa idaacadda Shabeelle dhinac waxaan ka ahaa marketing officer-kan ahaa drama program producer oo sheekooyinka oo samayn jiray sheekooyinkaan sameeyay waxaa ka mid ahaa sheeko caan ahayd oo la yiraahdo sheekada filamaa ka mid ahayd filamaa marka codkaan jili jiray waxaa codkii ogle dadku wada garanaya oglahaasa marka lagu kaanjiliska mararka qaarkoodna haddii oo loo baahdo way ka fursan weyda dirindaabyana waa jili jiray inkastoo amarshaan u ahaa ninka u badnaa codkii ogle haddii aad adigiyo riwaayadii jilaya hadda aad matasho daawadayaasha iyo aniga baadina maqashiiso maanta ogla ma taqaan adigu weligaa ma aragtay waa arkay aniga waqtigaa waxaan leeyahay horta boos lagu yiraa waa ku arki jiray laakiin meesha ma xasuusto bal isku day inaad soo xasuusato maanta xasuuso ma jirto meesha adaa la joogaa haye ma xasuusan karayaad haye waaw alla ilahe codkaas waxaan filayaa dad badan oo barnaamijka daawanaya marka ay maqlaan
inay dib u milicsan doonaan sheekooyin ay kala socon jireen idaacaddii Shabeelle. Intaa marka laga soo tago Axmed Taajir, iyadana waxaan doonayaa inaad daawadayaasha xusuusiso adigoo warkii subaxnimo saaka u fadhiya ee idaacadda Shabeelle si toos ah u bixinaya bal qodob-horeed ama furitaankii warka ee codkaagii rasmiga ah ee warka ku akhrin jirtay. والله تاسينا إلا ما نمريني مرت واحد حسوستا مركي أنك سوري إذا عدى استين وأنا إذا عدى شبل سوري واحد حسوستا إذا عدى شبل مركي يقولي إن كأخري هبين بها هبين كي مركا قفكي وركا إيساري مقرني عبد العود ميوها لكن waxaan xasuustaa markii uu qodobada aqriyay waxa kamid ah kada golaha markaas oo dhan waxaan noohay Axmed Cumar Xaashi waxaan ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim bisimkan ku bilaabay idaacadda Shabeelle marka xilligaas bisinka ma jirin runta fiican moogta marka idaacaddu aroortii shir bay lahaan jirtay shirkii aroortii baa markii aan soo galay maxaa farta wada taagan waxa farta taagan tif baan ayaa Axmed Taajir tif baan ayaa tif Axmed wartiftu maxay ahayd يسوي حاجة عاد حلو وحكوا على بيسنك. هاي. تبغى كيس تبغى على دي بيسنك كتير في النقطة. بس هو يدور نسيت يا شباب. سبب تقول دي يعني مركز معي. بيسنك ما تشيرين عاد مركز. سبب كلام ما تشيرين بقى. لكن لقى ما آخرين تشيريني. أنا أكون بلاوي. مركز ما أنت هالسنة لقيت شيء تيجي. ما أنت هيدا. هي لقيت شيء تيجي. مركز وحي كتب بيوريا شوي بلاوين استعمال. بكل مركز شباب الله يكون أكين كدبنا. والله سيبه رجال لكن أنا مركز أول آخر بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها الجمهورية الديمقراطية الصومالية مدن هبل أي ساكا وحو بوقشة كنت ماشاس ساقو هالكاس كجا هذلي أريم النوع عصاصي هالكاس كسيب لا وري أحمد تاجر وحو دوان اسكو داي إنو دب ugu laabto Soomaaliya isla markaana uu halka ka sii wado shaqadiisii saxaafadda balse markii uu dib u laabasho isku diyaariyay maxaa dhacay wallahi horta way igu jirtaa shaqadeena dib ugu laabto oo bir dhow dumar baan sidii ama yara laabataayo anoo xogaa yara xad xaytay xilxiray ya qolo waxay soo dirtay waraaq laga soo saaray nin lagu diray afku iyo jeebkiisa marka waraaqda waxa ku qornaa koox wanted ah oo ku jiraanu boodari ba kamid aha waxa kamid ah Farxi Cali Qaajo magaceedan ku arkay way waxa kamid ah ninka la yiraahdo علي موسى هذا تلياني كتشوجا حسن بري حتى كتشري أو يسفودي وهذا أنمنا سنين وتشوجا نيروبي وضد بدن بكتشري بولري أنا حتى كتشري وبولري حتى أنت تشكيليا كوني ولا سكان قلنا لابن يعني وراء الصهيل مكسرين صدر ده كل سنين هذا أنا نقبحني لكن ويقول شفت هدي الله يدمه هنا شغال كل لابته صومالي ده واحد ترى وراء وضو قشان ويركرون كلي هذا ولا جو ده ولا شغال لك أساسا يتعينه تورا ما دوق جو وحتى شاور وكروي وروا كمالين كمالين إن شاء الله ديالنا أدبو ما هتنتهي بالأحمد تاجر وحدوني يا رب عداسة حافظة يدنا دام عتهاي لا هذا الورية عتهاي طبعا إلى برامج كي نوصل قبل وهي أدبو ما هتنتهي دقيستيال وحن كفر حسن هاي داوشة التلفزيون كاف 5 TV الدهلية من شغلها حوالي مرة يقدم بيسي برنامجكي ولا شيء فوس أي هل كان بالا أي نوع غلطي تاسين يكسر بالكلين. تاني يقول الدكتور مع السلامة.